السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada Sense 24 casharkan kore waxaan ka hadlaa waxa loo yaqaano serial circuitska marka serial circuit markaan ka hadlay waxaan u magaranaysaa mareegyada marka la xirayo waxaan u xiri karnaa serious ama parallel ama waxaan xiri karnaa inaan isku darno isku dhafno oo serial iyo parallel isku dhex darno marka maanta waxaan ka hadlaynaa macnaheedu seriouska seriouska magaranaysaa sida loo soo saaro waxa loo yaqaano current-ga total resistance-ka iyo waxa loo yaqaan voltage-da macnaheedu midkaas markaan ku hadlano marka hadda waxaan ku haystaa halkan circuit-kana meesha ku haystaa marka circuit-kan halkan battery baan haystaa 15 volt weeye halkan waxaan ku haystaa resistance-ka 5 resistance bas daba dhiga marka isku xidhan yihiin oo resistance isku daba xidhan yihiin waxa loo yaqaan series baan leeyahay marka series marka aan xirno voltage-da current-ga dhex maraya macnaheedu mar haddii series u xidhan tahay current-ga dhex maraya waa isku wada mid كاتين أو قات مربو وي ما هذا سيريس وحرنتي كرنتيجا دحمرية يعني هو أسكور من هذا الكرنتيجا هان كعبره يهدا حان كعبره يهدي حان كعبره يهدا حان كعبره هذا حان كعبره هذا حان كعبره هذا حان كعبره ميلو بان كعبره وأسكور من توتال يعني هو حسكون مرية هو سيم كرنتيجا مرية مركا كرنتيجا روح وقول يا من نري مركا أي تهاي سيركيوتكو مركا وحرية هاي هدي أي سيركيوتكو أسكن حدنين من واحد كرنتيجا وقول يا مريها مركا كومبليت سيركيوت دي تهاي ريزيستنس كان واحد مرية هو سيم كرنتيجا نري mar haddaan same current in hadaba waxa ku dhacay waxa loo yaqaano voltage wuxuu qaybsan 15 voltage oo battery bixinayo waxa resistance meeshan shanta resistance buu qaybsamasa oo mid baa ku dhacaysa hadaba sidee bay ugu qaybsamasa insha Allah waan soo saar doonaa marka mid ku dhacaysa laakiin sidee ugu qaybsami doontaa marka waxa jira xiriir ka dhaxeeya voltage-ka iyo resistance-ka hadii ay weynaato ay weyn tahay waxa ku dhacaysa voltage baa ku dhacaysa hadii resistance-ku yaraatana sida tan oo kale ugu yar voltage-ku yaraa macnaheedu ku dhacaya u yaraanaysa marka saas weey marka saas ku xidhan yihiin marka tayna ogaato weey marka hadda waxaan karnaa hadeer waxaan haystaa shanta waxaan haystaa R1 R2 R3 R4 R5 oo mid walba mataqaana waxay haysataa mataqaana resistance kala duwan ka tuugan hadda waa 22,000 yani voltage ugu badan waxa ku dhacdaa maadaama ay aad ugu weyn tahay kuwa kale 22,000 taas ma garanaysa ta ugu yarna way ku dhacdaa 33 maadaama aad u yar tahay marka taas hadda saas ku saari karaa markaan haysto sidaas waxaan naqaan horta waxa loo yaqaano adeer resistance waan haystaa hadda voltage macnaheedu voltage 1 hadda waxaan ku qoro voltage 2 voltage 3 voltage 4 iyo voltage-ka afraad oo ah 5 marka inta hadaan ku qoro hadaan uu ka bedelo macnaheedu uu baan ku wada qoray sorry macnaheedu 4 baan ka dhigayaa maadaama hadeer wadamada qaarkood ay isticmaalaan waxa loo yaqaano Spanish oo Quraan sida tan badana uu daasay FAW1 FAW2 FAW3 FAW4 iyo FAW5 yani taas Spanish kuwad yani Spanish labaad kuwad Spanish kuwad labaad Spanish saddexaad afraad iyo shanaad hadeer maadaama intaan naqaano waxaan oranaynaa waxa la ka rabaa hadeer Spanish asal laga rabaa marka maxaa homislow muxuu ahaa homislow wuxuu ahaa voltage-ku macnaheedu faw waxa la mid ahayd macnaheedu current-ga oo lagu dhuftay resistance-ka taas ay ahayd marka homislow maadaama uu ahaa hadeer waxaan haystaa voltage-ku waan haystaa macnaheedu markaan hadeer raadinayo mataqaana waxa loo yaqaano marka kuwa hadeer voltage-ka ma soo saari karo maadaama aan current-ga ka marayaan haysan macnaheedu resistance-ku waan haystaa laakiin current-ga ka maraya ma hayso laakiin haddii current doonayo وين مركو هلا معنيه voltage كمان هيستوى للسي وين resistance كان هلا ما دام أنا current كان دوني معنيه current كان ماشان مرة total current كان ماشان مرة قلقلاية ما دام أنا ربنا إن مذول بقار ها وصل صار ما خبر بقار ها خمسة صار يو وين أنا هلا معنيه current كاس أو resistance كل فترة resistance كان يكرنت كده حمر ناس كل فترة resistance كان يكرنت كده حمر ناس كل فترة resistance كم مكاننا سام ما دام كل فترة current كنا وسكود مدي هاي وين soo helaa current-ga ma heli karo aniga resistance-kan haysan sadarteed weenan isku wada daraa resistance-kan total resistance-kan aanu qaybiyaa voltage-ka 15ka kadib resistance-ka waxa helaya current-ga marka sidee baan ku heli karaa total resistance-ka waxaan oran karaa resistance total ama T oo soo gaabinaa resistance total waxa la mid tahay resistance 1 oo lagu daray resistance 2 oo lagu daray resistance 3 oo lagu daray resistance 4 oo lagu daray resistance 5 marka resistance-ka T total macnaheedu ka wada waxay noqonaysaa 22,000 oo oo lagu daray 100 oo lagu daray
33 ohm oo lagu daray 2200 oo ohm oo lagu daray 1000 ohm. marka intaas waa total resistance T total resistance T T da waxa wada total waxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa 25333 ohm. intaas marka waa marka hadaan qor hadeen ma taqaanaa resistance waxaan qori karaa min kilo ma qori karaa marka min 3 eber buu maadaama kilo aadayo min 3 baan qay min 3 eber buu guuraysaa marka min kun baan qaybinaya marka intaas markaan dhaho waxaan oranaysaa 25.333 kilo ohm. marka hadda wixii waan haystaa okay maadaama hadda wixii ba haysto waxaan oranayaa hadda waxaan leeyahay rabaa marka resistance waan haystaa voltage kana waa la siiyay waa 15 kale siiyay marka current meesha qulqulaya taas qulqulaya current meesha qulqulaya soo saaraya marka current waxaan ku heli karaa waxa kale ku heli waxaan oranayaa ma taqaana sharcigayga isticmaal current maxaa lagu helaa Ohm's law markaan haysto in kan baa subject formula ka dhiganaa marka waxaan waasa voltage kaas oo loo qaybiyay resistance kaas okay intaas waa easy waxaan leeyahay voltage ka oo loo qaybiyay resistance ka haye voltage waxaan haystaa 15 volt oo loo qaybiyay 25,333 ohm maxaan ugu qaybin waayay micnihii tan oo kilo ohmka maadaama ay kilo ohm ay micnihii cabirka caadiga maxay leedahay ma taqaanaa resistance ku ohm marka kilo micnihii waa kilo ka saaraya haddaan inta u qaybiyo kilo micnihii khalad ay galay micnihii point ay galay saadirtay mar rabo micnihii caadiga hadda mar walba kiloda ka bedel ohm u bedel asaas sameeyay marka inta maxaa ka soo baxay current-ga waxaa ka soo baxaya 0.0003059 ampere maadaama marka hadeer ay tahay ay aad u yar tahay oo siro badan tahay min milli waan u bedelay maadaama ay tahay milli waan ku maan min ku dhufanaya marka 3 eber buu guuraya okay marka waxaan oranayaa current-gu wuxuu la mid yahay waa 0.0 sorry milli markaan bedelo waxaan oranayaa waa 0.592 milli ampere okay milli ampere waa badan micnihi loo qoro maadaama ay yar tahay hadda waxaan haystaa micnihi current-ga halka maray waan haystaa current-ga meesha dhex maray waan haystaa micnihi current-gaas intaas dhex maraysa meesha dhan micnihi circuit-ku iska dhan micnihi maray marka hadda ku dhufto resistance-ka hadda ku dhuftay current-ga hadda ku dhufto micnihi current-gaas oo milliga ku dhufan maayo milliga because milli maxay kana isku cabiraan mar ahaa marka taas ku dhufanaya taas sare marka taas ma ku dhufanaya milli waa ka bedelaysaa dad kilo iyo milli iyo micro iyo waxa aad haysid cabirka saxda ah oo bedelaysaa marka hore cabirka caadiga ay leedahay in current waxa lagu cabiraa ampere baa bedelaysaa voltage waxa lagu cabiraa volt baa bedelaysaa resistance waxa lagu cabiraa ohm baa bedelaysaa cabirada kale ka tagaysaa so marka inta hadaan haysano hadeer xasuusay resistance walba ma xasuusaya voltage walba waxa ku dhufanaya current-gaas iyo resistance-kaas taas soo baxaysa taa resistance-ka current-ka ku dhufto taas soo baxaysa taas ku dhufanaya marka hadda xasuusaya voltage-yada micnaheedu voltage voltage 1 waxay ahayd waa current-ga oo lagu dhuftay resistance-ka koowaad marka waxaan waasaa voltage current-ga waan haysanaa noqonaya waa 0.0000592 oo lagu dhuftay resistance-ka koowaad waa 22,000 marka waxaan waasaa 22,000 baa ku dhufanaysaa oo maxaa ka soo baxaysa markaan 22 ku dhufto marka voltage 1 waaye marka voltage 1 waxa ka soo baxaysa waa 13.024 volt taas waa resistance koowaad marka 13 waxaan haystay marka halkaan aan haystay 15 baan haystay 15 volt maadaama 15 volt haystay ugu intanay hayd marka waxa ku dhacay 13 micnihi wax inta ugu badan waxa ku dhacay meeshaas okay wata markii hore ka hadlayna meesha ugu badan resistance ugu badan waxa ku dhacay voltage ugu badan voltage 2 waxaan oranayaa waa current-ga lagu dhuftay resistance-ka labaad current-gu isku mid wataan 0.0000592 ampere waxaan ka tagay ampere oo lagu dhuftay macnaheedu resistance-ka labaad waxaan waasaa 100 kadibna 100 baa ku dhufanaysaa kadibna laba eber guuraysaa waxaan waasaa waa 0.0592 volt taasina waa talabaad saddexaad aan soo saaro voltage-ka saddexaad waxaan oranaysaa waa current-ga oo lagu dhuftay resistance-ka saddexaad
ناقص 0.0000592 أمبير والغول فتاك ريزيستنس ده حد مسيحات صدني صدح كور فرنسا صدني صدح waxaa isoo baxaysa markaan waxaa 0.019536 volt taasina waa saddexaad taas waa resistance-ka afraad waxaa soo baxaysa waa current-ga oo lagu dhuftay resistance-ka afraad nasa 0.0000592 ampere oo lagu dhuftay resistance-ka afraad maxaa ahaa waa 1200 lagu dhuftay 1200 ohm resistance markaas ku dhuftay intaas waxaa iga soo baxaysa waa 1.3024 volt intaas waa intaas resistance-ka shanaad waxaa noo saa current-ga oo lagu dhuftay resistance-ka shanaad waxaa noo saa 0.000592 ampere oo lagu dhuftay resistance-ka shanaad kumbuha 1000 ohm markaa saddex eber bay guuraysaa bas waxaa noo saa 0.5 saddex eber baa iga baxaya 0.592 0.592 volt markaa intaas ku saaraya marka hadda waxaan ka waraa resistance ugu yar waa tee saddexaad waa tan 0.01 akan ha 0.01 waa saddexaad waa ta ugu yar hay resistance ugu badan waa voltage ugu badan waa ta ugu badan waxa weeye waa tan waa resistance ugu badan waa taas kaasa ku saarsa marka hadda isku daro voltage hadda isku daro shaytan waa soo baxda hadda tijaabi adiga voltage-daas inta isku dar wana shaytan ku soo baxda mini total resistance mini voltage total ka wana ku soo saarta marka taas ku soo saaraysaa waa easy magalanaysa serious ka magalanaysa insha Allah casharada kan kadib waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan baarar halkaas u shaqeyso iyo sida magalanaysa loo soo saaro halkaas ku jira casharkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wixii su'aal qabtidna insha Allah nagu soo qor comment-kayga halkaas ka soo jawaabi doonaa insha Allah tacaala